kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta naga daawata janaalada ilayska xogaha iyo sidoo kale tusmada filmada si wada jir ah labadana janaal hadaan oo kale waxa idinku soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay maanta laga xariiqay qaramaha Bollywoodka kuwaas oo la xiriirxanta jelayaasha filmada soo baxay qorshooyinka filmada tiyaatarada saaran ku goosgoosada heesaha laga soo bandhigay iyo waxyaabaha kana dhanaala bixiis weelayhiin oo la wadaagay kartiin daawadaashina ku taxan barta tusmada filmada iyo sidoo kale barta kale ilayska xogaha meel walba joogtaan hawada waxa idin kale nahay maalin wanaagsan kusoo dhawaada akhbaaradkeena kuwada xiisaha badan waxaas ku bilaabi doonaa waxaa la ogaaday xilliga la soo fasaxi doono filmka Pushpa 2 muuqaalkiisa kooban filmka iyo soo kale dhinaca kale film sameeyaasha cusub markaan filmka lacaga waaliha lagu qarash gareeyo si loogu dhabeeyo in uu noqdo mid xiiso leh oo dadka soo daawashatay karaan Allu Arjun filmka Pushpa 2 ayaa shakalaan wuxuu kamid yahay filmada markaan ugu xiisaha badan ee la sugulaaya ee qaybaha Hindiya soo kale haatan filmka ay wuxuu yahay mid qaybtiisa labaad ay ku socoto duubitaan asagoo soo kale qaybta koowaad filmka uu yahay mid gaaray guul aan laga filneenin waxaana soo kale filmkaas uu noqday mid ban Hindian level ah intaas kadib markii ay wacdarooyin dhigeen taxanooyinka qaybahooda laba sida Bahubali The Conclusion iyo KGF Chapter 2 ayaa markaan filmkan waxaa laga filin karaa Pushpa qaybtiisa labaad oo directorkaas ku maran in uu noqon karo film guuleysan kara waxaana soo kale markaan uu yahay mid saamigiisa filmkaas kor loogu qaado asagoo sidoo kale markaan ay yihiin kuwa garabka u saaran doona in filmkaas si walba oo guul ku gaari karo in ay sameeyaan sidoo kale filmkaas uu yahay mid wacdaradiisa la imaan kara si ay u arkaan film sameeyaasha Pushpa qaybtiisa koowaad ayaa waxaa lasoo fasaxay December 2020 taas oo guul weyn ka gaaray qaybaha tiyaatarada sidoo kale qaybaha Hindiya ay wuxuu yahay filmkaas mid lacag waaliha ka sameeyay asagoo ka soo xareeyay lacag gaaraysa 100 crore waxaana sidoo kale filmkan uu yahay xilli la soo fasaxay oo ka jiray coronavirus qaybaha Hindiya iyo adduunka oo dil waxaana guusha filmka markaan ka dhigtay in qaybtiisa labaad filmkaas lagu dhawaaqo asagoo sidoo kale qaybtiisa labaad ee mar badan ee duubitaankiisa ay noqotay ama duubistiisa ay noqotay in dib u dhac ku imaado asaato ugu dambeyn markaan ayaa waxaa la sheegay in duubistiisa toos loo bilaabay sida ay qortay track Tollywood.com director ka ku maran iyo film soo saarayaasha ayaa markaa waxay yihiin kuwa rabaa inay soo fasaxaan muuqaalka kooban ee filmkaasi iyagoo sidoo kale la sheegay in muuqaalkaas kooban lagu ogaan doono waxyaabaha filmka ku saabsan yahay iyagoo uu sheegay inaysan ka tanaasul doonin in filmkaasi awood loo yeelo sidoo kale ku maran ayaa waxa sheegay inuu ku faraxsaneen qaabka filmka qaybtiisa koowaad loo soo gabagabay iyo sida loo duubo haatan ayaa wararku waxay sheegeen in Pushpa 2 film soo saarayaasha markaan ay rabaan in filmkaas sidoo kale lacaga waaliha in lagu qarash gareeyo taas oo codsanaya directorka filmka ee soo maran iyo qolo soo saarayaasha markaan waxay rabaan in iyagana ay soo fasaxaan muuqaalka kooban ee filmka kaas oo ku aadin doonaan xilliga dhalashada Allu Arjun ee 8 April ee 2023 kuwaas oo rabaan xilliga uu dabaaldegayo jilaaga inta garaashiisa ay kula dabaaldegaan iyagoo ka soo saari doona muuqaalka kooban ee filmkaasi kaas oo filmkaasi rabaa inay sidoo kale si balan qaadaan xilliga la daawan doono filmkaasi Pushpa ayaa weli waxa si rasmi ah loo ogin xilliga la daawan doono asaata 2024 kama sokeeyo filmkan inta tiyaatar lagu soo fasaxo waxaana la kala ogaan doonaa xilliga dhalashada Allu Arjun ee 8 April in muuqaalka filmkaas laga soo saaro sidoo kalena lagu dhawaaqo xilliga rasmiga ah filmkaas tiyaatarada la saari doono filmka waa ban Hindian sidoo kalena waa mid loo aad loo wada sugayo kale waxaan soo eegi doonaa Trisha Samantha Roof Barabu ayaa xilli ay duubaysay taxanaheeda Citadel ayaa waxaa la sheegay in uu dhaawac soo gaaray xilli ficil action ah ee duubaysay Citadel ayaa wuxuu ka mid yahay taxanaha markaan aadka loo wada sugulayahay filmkan qaybtiisa Hollywoodka ayaa waxaa hogaamiye ka Priyanka Chopra iyo Rajat Madan halka qaybta Hindiyana ee Samantha Roof Barabu waxaa la wada jilaaga Farun Dhawan Samantha Roof Barabu ayaa markaan waxay tahay mid tababar u qaadanaysa duubista filmka Citadel taas oo director ka yahay directorada taxanaha The Family Man iyo Farzi director ka soo noqdeen ee Raj iyo soo kale DK waxaana sidoo kalena qaata socoto duubista iyo sidoo kale isku jaangooynta qaabka duubista loo wajahayo waxaana la sheegay in Trishada oo dhaawac ka soo gaaray xagga gacanta xilli ay action duubaysay iyadoo sidoo kalena noqotay mid baraha bulshada soo dhigtay
Citadel ayaa wuxuu ka mid ah mid markaan wararka kala haysta kadib markii lagu dhawaaqay in Priyanka Chopra iyo Richard Madden ee filmkaasi ay yihiin kuwa hogaamiyay sidoo kale waxaa jirta in sawirooyin laga soo saaray halka filmka lagu duubayo oo si online loo soo fasaxay waxaana sidoo kale yihiin mid isku soo baxaya sidoo kale taageerayaasha markaan waxay sugi lahayn in filmkaasi la soo fasaxo Salamina Samantha Roof Barabu ayaa waxay tahay mid qaybtiisa Hindiya ee Citadel duubeysa waxaana sidoo kale Instagram-ka ay soo dhigtay dhaawac ka soo gaaray xagga gacanta taasoo soo raacaysa inay tahay package of action ama waxyaabaha laga faa'iido dhaawacyada ee markii actionada la duubayo ay intaasi sii raacisay waxaana sidoo kale uu yahay mid la arkay in gacanteeda oo dhinaca suulka hoostiisa ee ka soo gaartay laba dhinacba dhaawac sidoo kale waxaa la arkay xaragtimo guduudan oo gacanta kaga yaala iyadoo sidoo kalena ay tahay mid ay soo dhigtay qaybta Instagram-ka marka laga soo tago Samantha Roof Barabu ayaa sidoo kale filmkaas waxaa kala soo muuqan doona Faran Dhawan directorada filmka ayaa waxa ay sheegeen in ugu hore markii ay akhriyeen scriptiga ama qoraalka filmka ee markooda ugu horeysay ee jooskooda koowaad oo ahaa Samantha Roof Barabu in filmkaasi lagu soo daro waxaana sheegeen inaysan jirin wax kaga farxad badan in Samantha Roof Barabu doorka filmkaasi ay ku soo dareen waxaana sidoo kale ay sheegeen in atrishada ay kala soo shaqeeyeen taxanaha Family Man 2 waxaana sheegeen in atrishada markaan ay tahay mid markaan u qalanto in lagu soo daro filmka Citadel taas oo lugtiis koowaad ee markaan ay tahay mid lagu duubi doono qaybta Hindiya sidoo kale waxaa loo boqol doonaa dalalka Serbia iyo sidoo kale South Africa waxaana Samantha Roof Barabu markaan ay tahay mid dib ugu soo laabanaysa filmada iyadoo sidoo kale atrishada maalmihii dambe ee mid xanuun la dhacaysay sidoo kale atrishadan ayaa wuxuu yahay mid loo daawan doono filmkeeda Shakuntalam kaas oo arrimaha boqortooyada ku saabsan waxaa sidoo kale uu yahay mid Citadelna loo sii daawan doono atrishadan ayaa waxay tahay atrishadu markaan ugu shidan sidoo kale ugu samcada weyn Hindiya iyadoo sidoo kale magac weyn ku heshay taxanaha The Family Man kaas oo qaybtiisa labaad ay ku jirtay waaga daawaday waxaan eegi doonaa ugu dambeyn filmada tiyaatarada saaran waxaan eegi doonaa filmka Selfie kaas iyo sidoo kale lacagaha uu sameeyay isniintiisii koowaad filmka Selfie hogaamiyay Akshay Kumar iyo sidoo kale Imran Hashimi ayaa 55% wuxuu noqday mid hoos u dhac sameeyay isniintiisii koowaad filmka wuxuuna soo xareeyay lacag gaaraysa 1.15 crore filmka ayaa markaan wuxuu yahay mid aan iscalin axadiis kood markuu korkac yar uu sameeyay filmka ayaa markaan waxaa la sheegay in isbuuciis kood oo la imaan doono 14 crore haatana lacagiis guud waxay maraan 11.25 crore taas oo u dhiganta 1.9 milyan taas oo lacagta dollarka Mareykanka ah filmkan ayaa wuxuu yahay mid isbuuciisii labaad aan jiri doono filmo saas weyn oo tartan la gala filmkan waxaana la sheegay in filmkan ilaa uu gaari doono 20 crore marka loo raaciyo isbuuciisii labaad taas oo filmkaasi ka dhigi karta inuu gaaro ilaa lacag gaaraysa 4 milyan ee qaybaha Hindiya inuu filmkan uu ka keeno haddaba waxaan isla eegi doonaa filmka tiyaatarada waxaa la saaray jimcadiisa koowaad ee jimcadan kasoo gudubnay wuxuu leeyahay 2.60 crore sabtidii wuxuu leeyahay 3.75 crore أحد وحول ما استحدث بسدات الشنكر شلون سنة فيلم وحول ما هل لبع 20 كرة سد جود وكوي 8 لبع 16 كرة لعقد قلاد أمريكان كان مركع ودقنا هل لبع 9 مليون إلا هل لبع 6 مليون عقوده ودنبين أي استوكل وحنا عقدنا فيلم كشاروخ أنه هجامية كيه بطان كاس إلى عقا وسمي سنيتي سي شنات فيلم كا أي وحوي مد هصدع سمي لباطن إلى 20 لباطن بقول كيبا مركل الأربعة بريجو جماعة دي سي أفراد وحنا فيلم كاس وكان العقارسة إلا 6 ليك فيلم كان أي وحوي مد مركان وعذر كديوه قيبها تياترada asoo lacag gaabsa markaan wada filmkan ay waxa la sheegay in uu yahay mid kor u dhaafaya filmada RRR qaybta Hindiya KGF2 qaybta Hindiya Kantara qaybta Hindiya iyo Drishyam kuwaas oo sidoo kale kamid ah filmada 10 film ugu fiican ee isbuucii shanaad kaas oo lacag fiican ka keena tani markii laga baxay bost pandemic ama cudur coronavirus hadaba filmka ay lacagiisa la eegi doona isbuucii koowaad filmka oo 9 maalin ka qaatay filmka xolay maade 347.25 كرور اسبوع سنه فيلمku xolay ma 9.25 كرور اسبوع سي saddexaad filmku xolay ma 44.25 كرور اسبوع سي afraad filmku xolay ma 13.25 كرور اسبوع سي shanaad oo ka qaad 4 maalina waa 6.25 كرور sida guudna waa filmka 502.35 كرور lacagta qalaad marka loo dhigana lacagahaasina waa lacag gaaraysa ilaa iyo 72 milyan oo dollarka Mareykanka intaan ku soo koobnay muuqaalada in warbixinada maanta aan ku qaaday dhigin wararka ugu dambeeyay maanta laga xariiqay qarmaha Bollywoodka kuwaas oo islaan waxay ahaayeen wararka ugu xiisaha badan oo aad la wadaagi kartiin daawadayaasha ku taxambarta tusmada filmada isoo kale bartakayle la isku xogaha hadda muuqaalada ka shaleeg noo soo kale saxaabtiin la wadaaga waad ku maasantiin alaabsaad muuqaalada oo daawatan kan kiisa xigana nabadiino